Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulan xasaasi ah oo xalay magaalada Muqdisho ku dhex maray madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel-gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo taliyaha hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad, kaasoo diiradda lagu saaray dhacdooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo tallaabooyinka dowladda. Ilo wareedyo xilkas ah ayaa inoo sheegay in si gaar ah kulanka loogu falanqeeyay is-hortaagii lagu sameeyay hogaamiyaasha mucaaradka oo labadii cisho la soo dhaafay loo diiday inay hubkooda la galaan xayndaabka garoonka ee xerada Xalane, taasoo keentay xiisad hor leh oo u dhaxaysa labada dhinac. Sida ay ogaatay warbaahinta Warqad Somali TV, kulanka Shariif iyo Mahad Salaad ayaa xal looga gaaray arrintan, gaar ahaan habraaca amniga ee garoonka Aadan Cadde iyo gelitaankiisa, iyada oo fursad la siiyay mucaaradka. Ilo wareedyo ku dhow madasha samatabbixinta Soomaaliyeed ayaa inoo xaqiijiyay in la isla gartay in madaxdii hore loo oggolaado tiro kooban oo ciidan ah inay la galaan gudaha garoonka, iyo sidoo kale in madaxda mucaaradka ay ku wargeliyaan laamaha amniga markii ay u socdaan gudaha xerada Xalane. Sidoo kale waxaa lagu heshiiyay in wixii ka dambeeya 5 galabnimo aan la adeegsan karin albaab aan ahayn midka Marina Gate, halkaas oo habeenkii laga galo xerada Xalane sida uu dhigayo habraaca amniga. Dowladda Soomaaliya ayaa markii hore adkeysay gelitaanka garoonka, waxayna taasi sababtay inuu saameeyo mucaaradka kadib markii laga soo celiyay aagga garoonka loona diiday inay u gudbaan. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo hadda degan hotel ku yaala gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale arrintaas ayaa sababtay inuu baaqdo kulan ay habeen hore lahaayeen mucaaradka iyo labada madaxweyne oo si weyn uga soo horjeedo qorshaha Villa Soomaaliya ee la xiriira hanaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka. Si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaase laga warsugayaa natiijada ka soo baxda wadahadallada la filayo inay dhex maraan Villa Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin Jubbaland, Puntland iyo mucaaradka. Aniguna waxaan ahay wariye Mahad Aadan Xuseen.